muddo 2 toddobaad kadib gelinkii dambe ee maanta ayay diyaarad sida dad shacib ka degtay garoonka diyaaradaha degmada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud. garoonka diyaaradaha degmada Cabudwaaq ayaa u xirmay sabab la xiriira dagaaladii qabaa'ilka ee toddobaadyo ka hor ka dhacay aagga deegaanka Laandheer oo ka tirsan gobolka Galgaduud. arrintan ayaa sababtay in isku socodkii gaadiidka ee dhinaca cirka ee gobolka Galgaduud qaybo kamid ah ay xayirmaan muddo 2 toddobaad ah, balse wada xaajoodiyo aan natiijo weyn laga gaarin oo ka dhacay deegaanka Olol ee gobolka Galgaduud, isla markaasna ay garwadeen ka ahaayeen beesha degta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa labada dhinac la isku keenay in kastoo natiijo weyn aysan ka soo bixin, ugu dambeynna lagu kala tagay. go'aanka in garoonka diyaaradaha degmada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud diyaarad sida dad shacib ay ka degto gelinkii dambe ee maanta ma ahayn mid sahlan, sababtoo ah waxaa markasta la filan karay qalalaase amni oo arrintan la xiriira iyo duqeymo ay la kulantay diyaaradan. inkastoo baraha bulshada lagu baahiyay muuqaalo sheegaya in duqeymo ay la kulantay, haddana si dhab ah looma xaqiijin karo arrinta ay qalalaase amni ay la kulantay diyaaradda ka degtay gelinkii dambe ee maanta degmada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud. diyaaradan oo sideed dad shacib iyo madax intaba ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Cabudwaaq, waxaana sida la xaqiijiyay ugu dambeyn ay ka duushay halkaas iyadoo soo qaaday rakaab ay u siday magaalada Muqdisho. xaaladaha amni ee ka taagan gobolka Galgaduud ayaa sababay maalmihii la soo dhaafay in isku socodka gaadiidka cirka ee dhulka magaalooyinka qaar uu xayirmo. sida la soo wariyay, gaari shidaal oo u socday degmada Xeraale ee gobolka Galgaduud ayaa isna maanta lagu curiyay degmada Balambal oo ka tirsan gobolka Galgaduud, waana dhibaatooyinka amni ee laga dhaxlay dagaalada qabaa'ilka ee ku soo laalaabtay gobolka Galgaduud. Galmudug ayaa sida ay sheegtayba ku guuldareysatay xal u helidda dagaalada qabaa'ilka ee soo laalaabtay, gaar ahaan dagaalada ka dhaxeeya dadka dega gobolka Galgaduud.